They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa si adag u cambaaraysay hadal waxshinimo lagu tilmaamay oo ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. hadalkaas oo ku aflagaadeeyay wadamada Haiti, El Salvador iyo kuwa ka tirsan qaaradda Afrika. Mr. Donald Trump oo xildhibaanna kula shaqeeya aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa aad u dhaliilay sharciga socdaalka waxaana uu yiri maxay tahay sababta Mareykanka loo keenayo dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah isagoo sheegay Mareykanka inay tahay hadiiba dad uu keensanayo inuu muhaajiriin ka soo qaato wadamada ay Norway ka mid tahay halkii laga soo qaadan lahaa wadamadan uu aflagaadeeyay. qaramada midoobay ayaa waxay ku tilmaantay hadalka Trump inuu dhibaato ku yahay bani'aadanimada dunida isla markaasina uu abuurayo cunsuriyad ka tarjumaysa in bani'aadamku si khaldan ay u fakaraan. waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in arrintaasi dunida si aad looga ilaalinayay tobannaankii sanadooda la soo dhaafay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunyada. sidoo kale senator ka tirsan baarlamaanka Mareykanka iyo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa si aad waxay u dhaliileen Trump inuu wasakh ku sheego qaramo madax bannaan oo dunida ka jira taasoo ay ku tilmaameen mid aan ka tarjumaynin dadnimada Mareykanka maadaama uu ku hadlay cunsuriyad iyo hadallo aan habboonayn. These are racist comments. He said things like this. These are all confirmations of what a lot of people have long suspected, that he harbors racism. Of the United States smacks of blatant racism, the most odious and insidious racism masquerading poorly as immigration policy. And I'll be very blunt. The president doesn't speak for me as an American. He demeans America. He demeans and betrays American values by these kinds of remarks. I mean, this is so, whatever he did actually say yesterday is deeply disturbing and sickening if it was what was reported. wargeyska Washington Post iyo telefishinka CNN ayaa waxay xaqiijiyeen hadalkaasi inuu yiri madaxweyne Trump inkastoo madaxweyne Trump uu markii dambe dafiray hadalladaasi inuu yiri